السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدوينها الصوماليات وعبد محمود قلا يا برنامج كيدين كي مجري معاد كوالد نمو وحو كهلا بدنا arrimaha qoyska iyo caruurta laakiin marar badan wuxuu ku soo qaadaa arrimaha siyaasadda iyo bulshada walaalayaal maanta waxaynu ka hadlaynaa bal duruufaha xagga hogaamineed ee ka taagan dalkeena runtii waxaad moodaa in hogaanka wadankeenu aanu maanta u shaqeynayn sidii la doonayay inuu u shaqeeyo oo dad badan oo Soomaaliyeed uu walwal hayo walwalkaas oo ah armay arrimuhu xumaadaan oo ma garanaysaa meesha ay joogaan maanta meel ka daran ay tagaan waxaan ilaahay ka baryayaa inaan taas u dhicin laakiin haddii aan dadnimo iyo karti iyo wadaniyad iyo ma garanaysaa lala imanin wax qabad halistu waa muuqataa waxaynu ognahay in muddo 2 sano ku dhawaada intii madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka qabtay isaga iyo Puntland ay isdiidanayeen iyo in khilaaf kale oo ballaaran oo siyaasadeed inta baarlamaanka uu hareeyay inta badan waxyaabahaasi waxay ka dhasheen damaca madaxweyne Xasan Sheekh oo uu ku doonayo inuu ma garanaysaa bal baarlamaanka uu isagu waxyaabo uu doonayo oo siyaasado uu doonayo iyo nidaamyo uu doonayo uu ka sharciyo uu halka mariyo waana dhibaato haddii wax dadka Soomaaliyeed ay diidayaan uu madaxweynuhu isku dayo inuu ku khasbo taas waxayna dhaxal siinaysaa waxaan wanaagsanayn maxaa hadaba loo baahan yahay maanta waxaa loo baahan yahay si wadankeena inuu u badbaadino laba arrimood mid waxa weeye mid ku xiran madaxda talada haysa midna waxa weeye mid ku xiran dadweynaha Soomaaliyeed ta madaxda aynu ku horeyno madaxda Soomaaliyeed oo uu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh waxaa loo baahan yahay runtii maanta inay la yimaadaan hoggaan dhab ah oo wadanka isu soo jeeda oo mideeya oo meel kaliya u dhaqaajiya oo ummadda Soomaaliyeed runtii daaweeya hoggaan ah hal doornimo iyo ma garanaysaa hoggaan ah nin geesinimo iyo ma garanaysaa daacadnimo iyo wadaniyad ay ka muuqato inuu la yimaado sababtu waxa weeye haddii madaxweynuhu aanu talooyinka hagaagsan qaadan oo aanu runtii ka kicin waxyaabaha ma garanaysaa isaga danihiisa siyaasadeed uu arkay inay ku xiran yihiin oo aanu aadin waxyaabaha ku xiran danaha qarannimo waxa weeye runtii arrintaas halis bay tagaysaa wadankeenu waxa laga yaabaa inuu arrimihiisu ay halka ka sii daraan waxay muuqatay markii dani la caleema saarayay dad badan oo Soomaaliyeed inay isu yimaadeen sidii dib u heshiisiin inay halka ka dhacayso kale qof walba uu niyad sami iyo ma garanaysaa aynu wax qabanno uu ku hadlay qof walba uu qiray in baahi jirto ah in la wada shaqeeyo marka runtii arrintaasi dhiirigelin ayay keentay dani laftiisu wuxuu yiri waxaan doonayaa in la heshiiyo marka madaxweyne Xasan ayay ku xiran tahay maanta shalay madaxweyne Xasan markuu talada u baahnaa oo taageerada u baahnaa oo xukunka qabtay dani waa ka dhaqaaqay waxay isku qabteen iyaga yaqaan laakiin wax dan Soomaaliyeed ma aha waa wax tan siyaasadeed iyaga ah labadooda midna runtii si ma garanaysaa hal doornimo ah ama nin qaran ah uma dhaqmin mid walba danihiisa ma garanaysaa gaarka ah oo aan habboonayn ayuu ka daryeelay oo ma garanaysaa uu ka doorbiday dantii guud imika haddii dani uu doonayo in isagu uu heshiis la galo Xasan oo isagu ka dalabku ka imaanayo ah hadduu Xasan marka uu yiraahdo maya kuma baahniyo waa iska dhaqaaqaya taasi raganimo maaha laakiin waxa raganimo ah oo hoggaan ah oo geesinimo ah oo hal doornimo ah in Xasan uu arko masawirka guud iyo danta guud oo uu yiraahdo war soo dhawow waxbaynu wada qaban karaa tanaasul waa tanaasulaya meel dhaxaynu isugu nimaadno danta wax dadka Soomaaliyeed ku farxaan oo u shaqeeya oo ma garanaysaa macna leh aynu meesha isu keeno ninka statesmanka ah mar walba saasoo kale u shaqeeya wuxuu ka fikiraa wax dadka dhaxal u keena oo ma garanaysaa manfac u keena oo horumar u keena wuxuuna ka ilaaliyaa wax dhibaato u keena oo dib u keena ninka hal doorka ah ama ninka qarana waa nin dhaxalka caynkaas reeba waa nin tilmaamaha uu leeyahay waxa weeye inuu midnimada ka shaqeeyo inuu dadka isu soo jiido inuu naf hurid sameeyo inuu qof walba dhageysto inuu ma garanaysaa meelo fara badan wax ka eego in mar walba ay noqoto danta uu leeyahay in wadankiisu hore u dhaqaaqo ninka tilmaaman waa kaas tilmaantu maaha ka wax burburiya ka wax kala diida kaas nin habaaran baa la yiraahdaa marka madaxda Soomaaliyeed waxaan doonaynaa inay noqdaan rag tilmaaman rag macna leh rag runtii eega waxa dadka Soomaaliyeed dantoodu ku jirto
oo aan eegin siyaasadooda dhow oo iyagu inta xafiiska joogaan ama si xafiiska ay ugu sii raagaan waxyaabo yaryar oo iyaga maaragtay maslaxada ay u arkaan inay waxyaabo guud oo maslaxad dadka Soomaaliyeed ugu jiraan ay u burburiyaan taasi marka ma aha waxaynu doonayno iyo waxaynu aqbali karno madaxda Soomaaliyeed waa inay eegaan bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta oo ah faqriga oo aan nabadgelyo xumada oo ah qabyaaladda kala daadsanaanta dadka ma garanaysa wadanka gudihiisa ku baaba'san oo guryahoodii 20 sano 30 sano xiriir qaxooti ku jira waxa soo dhan waa inay eegaan infrastructure iyo ma garanaysa kaabayaasha dhaqaalaha baaba'san shaqo la'aanta waa inay eegaan dhalinyarada duruufaysan waxa si wax looga qabto waxa loo baahan yahay hoggaan caafimaad qaba oo geesinimo leh oo daacadnimo leh oo waxtar ah oo dantiisa siyaasadeed runtii aanay muhiimad weyn lahayn ee muhiimadda weyn ay tahay inuu wax qabto markuu hogaamiyuhu wax qabto dadku iyagaaba jeclaanaya iyagaaba dooranaya laakiin maaha hogaamiyuhu inuu khasbo dusha uga keeno in dadku isaga ay maaragtay doortaan ama wuxuu doono uu xoog ku meel marsado taasi ma hagaagsana dadka Soomaaliyeedna uma samaysna inay waxyaabaha caynkaas ay aqbalaan oo jajuubka aqbalaan taa horeynu u ogaanay waa inaynu taa ka korro dani waajib ay ku tahay inuu ka qayb qaato oo xoojiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ma aha inuu diido nin walba madaxa inuu la shaqeeyo taasi waa cilad xaqiisa hadduu sidaa ku adkaysto waxa loo baahan yahay gogasha uu fidiyay inay dhab ka noqoto inuu runtii yiraahdo war waa ka xumahay wixii dhacay diyaar baan ahay maanta waxaan u maleynayaa inuu rajo badan qabo oo faraxsan yahay oo 5 sano dambe dib loo doortay laakiin rajadaas waa inay noqoto rajo Soomaali wax u tarta faraxaasina waa inuu noqdo farax Soomaali wada gaara oo uusan isaga isku koobin iyo isu arkin inuu isagu hadda maanta nin guuleystay yahay oo 5 sano loo doortay oo xasan u baahan yahay 2 sano ka bacdi markii maaragtay uu rabo inuu xukunka haddana ku soo noqdo ama oleynayo taayu u fikirin laakiin waa inuu u fikiro maxay tahay maslaxadda iyo danta ummadda Soomaaliyeed sidee baan wax u kordhin karaa sidee baan wax u hagaajin karaa anoo kaashanaya dadka Soomaaliyeed oo ma garanaysaa ku jira awoodda haya ama talada haya taas waa ta madaxda aan kula dardaarmayo midda labaad waa dadweynaha Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan dadkooda hormuudka ama elite-ka loo yaqaano ama kuwa dhaqaalaha ama aqoonta ama siyaasadda ama waxay doonaan ha noqdeen walaalayaal waajib baa idin saaran waa inaad dadka abaabushaan oo u abaabushaan in lagu khasbo madaxdu inay hoggaan wanaagsan noqoto inay noqoto kuwa ka shaqeeya wax maslaxadda dadku ku jiraan oo danahooda goonida ay iska ilaaliyaan oo iska dhaafaan waxa waajib idinku ah inaad meel walba ka hadashaan in haddii loo baahdo aad mudaharaadyo abaabushaan aad runtii caddaysaan in waxyaabaha socda aydan raalli ka noqon karin dadku Soomaaliyeed ay dalbadaan in ma garanaysaa madaxdu waxa ay doonayaan oo khayrku ugu jiro oo faa'iidadu ugu jirto ay ku hogaamiyaan ay iska dhaafaan damacooda iyo ma garanaysaa danahooda goonida ay iska dhaafaan ama danahooda khaaska ay iska dhaafaan haddii aanay dadka Soomaaliyeed runtii garan maslaxadda guud iyo danta guud haddii aanay garan oo aanay ka korin qabyaaladda iyo qoloqolada iyo danaysiga iyo waxyaabahan macnaha lahayn waxa weeye waynu dhibaato baynu ku jireynaa runtii dhibaato ayaynu ku jireynaa sidii aynu u aragnay markaynu kala daadsanahay dhibaatada ay leedahay ayaynu sidii ay sii soconaysaa waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed runtii ama madaxa noqdeen ama yay noqoneen ama kuwa maamulka hadda haya ama kuwa hore u soo maray ha noqdeen waxay doonaan ha noqdeen in arrimaha lagu baraarugo oo laga shaqeeyo midnimada iyo dawladnimada iyo horumarinta ummadda iyo dalka Soomaaliyeed in laga shaqeeyo taa ayaa qof walba oo Soomaaliya maslaxad iyo dani ugu jirtaa taa ayaa sharaf iyo dadnimo iyo karaamo inoogu jirtaa wixii kale oo dhan runtii waxay noqonayaan halbacaad kulisna waxa weeye waa qof waayay wixii uu doonaya ay ka dhumeen mana rabno in wax inaga dhumaan fursad dambe inay inaga dhunto ama wax dambe ay inaga dhumaan runtii wax badan baa hore inooga dhumay waqtigan waa inaynu eegno baahiyaha iyo duruufaha ina haysta oo ama gudaheena ama dibadda inooga imanaya waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay sidaa u fahmaan oo qof walba kaalintiisa uu runtii ka qaato dib u dhiska iyo horumarinta dalka Soomaaliyeed waa Cabdi Maxamuud Qala barnaamijkii idinka iman jiray macadka waalidnimo maanta intaasaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh